وفهم هذا وقنا عنها وقنا هوتيلada ugu badan dalka inay la siiyo waa ogahay waa soo dhaweynayna annaka waxaan rabnaa dalka wax soo saarkiisa kor loo qaado wasiirka xanaanada xoolaha dhirta idaaqa Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed ayaa maanta magaalada Muqdisho ka faray wada tashi ku saabsan sidii loo maalgelin lahaa ganacsatada ka shaqeysa wax soo saarka caanaha iyo calafka taas oo qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo iskaashiga dawladda iyo ganacsatada si loo horumariyo wax soo saarka gudaha loona kordhiyo fursadaha shaqo taas oo qayb weyn ka qaadan karta kobaca dhaqaale ee dalka shirka oo ay ka qayb galeen agaasimaha guud iyo agaasimaha xidhiidhada wasaaradda xanaanada xoolaha wakiilka hay'adda FAO ee Soomaaliya iyo ganacsato kala duwan ayaa inta uu socday lagu falanqeeyay fursadaha iyo caqabadaha ka jira kordhinta iyo tayeenta wax soo saarka caanaha iyo calafka iyo sidii ay maalgelin u heli lahaayeen ganacsatada ku lugta leh labada qaybood wasiirka xanaanada xoolaha dhirta idaaqa Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed oo faray kulanka ayaa xusay in wada tashigan lagu go'aamin doono dariiqyada maalgelinta istiraatiijiga ah ee kor loogu qaadayo wax soo saarka caanaha iyo calafka iyo taageeridda ganacsatada maxalliga ah si loo xoojiyo ka qaybgalka Soomaaliya ee suuqyada caalamiga ah sektorkan caanaha iyo foodarka waxaan rabnaa inuu noqdo sektorka wasaarad ahaan markaan hadda ka shaqeynayno horumarka ugu badan in la gaarsiiyo qorshaha uu noogu jiro ilaahay idinkiisa hadduu ilaahay adno waxaad ogtihiin dadka Soomaaliyeed inta badan dee waa dad xoolo raactaa waay ma ahan dad xoolo dhaqataa isbeddelkii cimilada markuu yimid oo adduunyadu ay isbeddeshay waxaa dhibaatooyin badan ay soo gaareen dhinaca xoolaha abaaro soo noqday daadad iyo mushkilad badan mushkilaadkaas ayaga kaliya waxaa loogu gudbi karaa in gacmaha la isqabsado dadka ka shaqeeya sektorkan ama caanaha ahaadaan ama cooska ha ahaado foodarka in gacmaha la isqabsado la maalgeliyo ayaga iyo bangiyada dalka ka jirana la isku xiro sidii ay wax soo saarkooda kor ugu qaadi lahaayeen ka wasaarad ahaana shaqadan maanta aan u fadhino waxay socotaa muddo badan ay soo socotay sanad iyo wax ka badan oo laga soo shaqeynayay meel walba loo soo fadhiistay waxaa ilaahay mahadiisa maanta inay heer gebgeba marayso oo meeshii ugu fiicneed maanta inay marayso aan rajaynayno insha Allah waqtiyada kale oo aan isku soo noqonay ayadoo sidii arrintan maalgelinta ay u bilaaban lahayd ama shaqooyinka ay u bilaaban lahaayeen ay noqon doonaan marka waxaan rabnaa sektorkan in kor loo qaado dadka ka shaqeynayo aan rabo inaan dhaho dadaal badan iyo juhdi badan ayagoon garab badan helaynin soo sameeyeen waxaan rabnaa in la garab qabto arrimaha lagala shaqeeyo insha Allah tacaala hadduu ilaahay sanadkii waxaa la yiri 200 milyan lacag ka badan ayaa waxyaabaha caanaha iyo waxyaabaha loo soo dhoofiyo ayaa nooga baxaan marka waxaan rajaynaynaa maalin ma sameyn karno waxaas inaan booskaas wada buuxino laakiin tartiib inaan u soo kacno oo sanad walba inaan dhinno wax soo saarkeena aan badino insha Allah tacaala wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta idaaqa iyo hay'adda FAO oo iska kaashanaya barnaamijkan ayaa waxaa ka go'an inuu qorshahan horseedo kobac dhaqaale oo waara fursado shaqo iyo horumar muuqda oo ku saabsan qaybaha wax soo saarka caanaha iyo calafka xoolaha oo muhiim u ah dhaqaalaha dalka xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho